wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Somaliland iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka ayaa xariga ka jaray dugsi sare oo laga hirgeliyay degmada Mandera kaasoo ay xukuumadda Somaliland la kaashatay hay'adda Save the Children. Ismaha dugsigaasi ayaa sidoo kalena waxaa ka hadlay maamulka gobolka iyo degmada waxaana ay ka warrameen muhiimadda uu leeyahay dugsigaasi. Dugsigan Mandera ayaa ka mid ah dugsiyada sare ee haatan laga hirgeliyay sanadkani gobolka Saaxil. dugsigii aynu dhowr bilood ka hor aynu dhagax dhignay inaynu maanta aynu furayno waxaan idinku ballan qaadayaa iskuulka inaan u soo dhammayno annagu wixii buugaag ahaa iyo macallimiin wuxuu u baahnaa deyrkana waa taa la ballan qaaday waxa aanu idinka rabnaa idinka waxa weeye ardaydii hogaaminaysa wasiir Samson oo dhagax dhigiisina lahayd maanta furitaankiisa halkay nala joogtay marka oo jecelahay heeday naga caawisay EUda iyo Save the Children Fund labadaba halka laftigoodana uga mahad celiyay haddii aanay meel dugsi sare lahayn dhalinyaradiisu kuma nagaato iskuulka la dhisay structure-kan sameynay dhismayaashan macna badan runtii ma sameynayaan laakiin ujeedada laga leeyahay fiicnaa runtii aad u qurux badan ujeedada kale waxa weeyaan in ardayda halkan deegaankan u dhalatay ay helaan markaa tacliintaas oo mid tayo leh aad u soo dhaweynaysaan cidda wax idin qabanaysa iyo cidda wax idin taraysa waxaana muhiim ah in la ilaaliyo mar walba hantida wixiina soo gaadhay inay ilaasho wasaaradda waxbarashada oo wasiirku ugu horeeyo runtii aad baan u hambalyeynayna aad baan ugu dhaaranaynaa aad baan u soo dhaweynaynaa dhagax dhigaynay waftigii hogaaminaysay marwada koowaad ee qaranka Amina Maxamed Jirde iyo wasiiradda waxbarashada halkan ma dhagax dhignay dhagax uu rumoobay Soomaha aad baan ugu mahadnaqayaa waayo xagga waxbarashada aad baan ugu arkaa oo wax badan oo la taaban karo ay ka qabatay Cabdikariim Saciid Saalax on Cable TV Berbera.